waxaan jecelahay ama aan ku qanacsanahay badda inaan cuntadaydii iyo Soomaalinimadeydii iyo dhaqankaygii iyo waxaygii inaan meesha ka muuqdo taana waan jecelahay waxaa la yiraahdaa Umal Khayr Xasan meheradan waxaan bilawnay 2022gii alxamdulillah laba sano iyo waxbaan imika wadnay imika meel kale oo xaafad kale oo Greenwich la yiraahdo baanu laba maalmood ku darnay alxamdulillah waan ku faraxsanahay waan ku qanacsanahay meheradayda yar inkastoo Soomaalidu yiraahdaan ilaahay meel weyn haydi siiyaan amiin ya rabbi laakiinse halkan wallahi aad bay noola weyn tahay waayo muhiimadda ka dambaysa ayaa ka badan maxay hayday inaan meel weyn furano meel waaweyn badan weyn leenahay laakiinse just inaynu suuqa iyo dadka aynu ka mid ahaano cuntadeenu meel kasta ka muuqato insha Allah dadka kale Soomaalidana waxa ku baraarujin lahaa inay sidan oo kale sameeyaan oo ay cuntadooda iyo dhaqankooda iyo dharkooda iyo ay meel kasta geeyaan insha Allah you want chili No, there. Yeah, that one. Just On give top. it like that. No, just give it like that. like this The squash. Huh? I'm going to stop doing them now them little pot they cost too costly Yeah. What's your name? My name's Charlotte. Is it your first time coming to Royal's Kitchen? It is, yeah. My former housemate recommended this place to me and I saw it on Instagram and it looked great. So I was like, I really want to try it. But I don't have like a high spice tolerance, so I was a bit unsure, but it's great. The thing that you like about I love Somalian food. I love it. I've never tried that in my life like this lamb. Even though in my country, see, similar. I love it. I love Somalian food. runtii aad iyo aad baan isoo dhaweynayaa waana ku faraxsanahay waana wax loo baahnaa oo maxay hadda waxa jira dadyoon kale maxay ajaanib tahay food truck bay wada leeyihiin marka waan u baahnay meel maxay Soomaali ama gabar Soomaaliyeed maxay ka shaqeynayso cunto fiican cuntadii maxay guriga lagu sameeyo kama si fiicanba ay sameynayso marka aad baan ugu faraxsanahay runtii waana caawisaa bariis baasto macaroni hilib waxaanu iibinaa steak waxaanu iibinaa suqaarkii waxaanu iibinaa suugadii waxaanu iibinaa veggie options oo suugo veggie sambusihii oo veggie burkii veggiehii sambusihii oo hiliba oo basbaas la'aana waxaanu iibinaa shaah waxaanu iibinaa qaxwo waxaanu iibinaa maraq jimcayaasha waxaanu iibinaa xaniidkii calooleydii baanu iibinaa sabaayad baanu iibinaa ama kamisida u taqaanid waxaanu u soo iibinaa timir cake baanu iibinaa maxay hayday muuskana bilaash ku bixinaa كل مقايضه سو arkin maqaayadaha Soomaalida waa aragtay maqaayada Soomaalida badanka waxaas imaado waa Soomaali weeyaan laakiin food truck cid walo aan Soomaali ahayn wayn ayaa imanaya oo cuntadeeni dhandhaminaya dadaan garanayn baa markii hore intii cuntada u yimaadaan ayaa markay dhandhamiyaan haddana dib u soo noqonaya marka food truck waa meel cid waliba ay iman karto oo publica laakiin sida maqaaxiyuhu ay imka leena soo baranayo oo ajnabigii ay noo imanayaan haddana food truck wuxuu kaga duwan yahay cid waliba way imanaysaa cuntadii way dhandhaminaysaa gabar aad tahay Soomaali ah dad muslim ah dadka gaalada ma imaado ama ajnabiga maxay dhaxaan wax ma kala kulantiin may waxba kala ma kulanno qof walba gacmo furan baan ku soo dhaweynaa cuntadan dhadhasiinaa marka dambe iyaga cuntadeennii intay ka helaan haddana dib u soo noqda wax dhibaato ah kala ma kulanno in haddana waxaan la joognaa walaasheen Umul Khayr ku soo dhawaaw channelkeeda thank you waa mahadsantahay walaal Umul Khayr kullitu meel fogaan kaaga imaaday shalo jimcadeed oo ku imaaday waxaan arkinaa mashquul tihiin oo aad mashquul ah u tihiin marka maanta aan soo noqdo sabdi ah welina mashquul ah tihiin su'aasha ku horeysa ku weydiinaa waxa horta maxaa kugu dhiirigeliyay food truck idea ama aad mataqaana aad wax ku iibisid food truck oo Soomaalida badanaa aan lagu aqoonin
waxay igu dhaliyay horta long time waxaan u shaqaynayay retail baan ka shaqaynayay qof baan u xamaalayay marka intaan dabeetana ingiriiska waxa jira markuu ilmuhu iskuulka dhameeyo CV baa loo dhiibaa CV-ga ordoo dadka shaqo ka raadsan baa la yidhahdaa laakiin sida laguma dhiirigeliyaan inaanu business furanno inaan anagu wax qabsanno only markaan imika deen islaan weyn noqday bay igu soo dhacday aan idhi waay baan ugu xamaalayaa qof aan qof kale u dhisayaa maxaan aniguba maxaan isugu xamaali waayay marka cuntada soomaalidana weligay waan jeclaa ayada bay soo korisay dabeetana from a young age baan bartay sida cuntada loo sameeyo aan waxaan enjoy garan jiray buu ahaa marka inaan asxaab nahay oo ciyaalkayga timaha u jara saas ku baranayba tima jara ahaaba igu yidhi intaan timirkaygu geeyey maxaad waxaan u iibin weydayo arinoy baan ku yidhi ma garanay wallahi sidee lacagna maan haysanin aan restaurant weyn iyo wax ku furto marka wuxuu igu yidhi maxaad tarag usoo iibsan weydayo halkan xaafadeena village maxaad u samayn weyday marka gabadh kale oo afrikaan oo halkan ka shaqaysa buu igu yidhi heblaayaba bahalkan islaamu cuntada ku riixdaan ma aragtay adigana ay ku aragtay dhowr jeer oo riixanaya iyo cuntada xafiyada ku geyn jirtay si fiican maxaad u samayn weyday marka inankaas ay igu dhiirigeliya alxamdulilah rabbil caalamiin intaan hadda meesha joogay waxaan ku arkay hablo oon dumar kaliya inaad tihiin dadka wax iibinaya ama meesha maamulaya oo kale halka maqaayadaha soomaaliga looga bartay badanaa ragga inay mataqaanaa ay marka arrintaas kulleeto waa arrin dhiirigelin u ah dumarka Soomaaliyeed bal hal iyo laba maxaad fariin ugu marinaysaa dumarka rabo inay ganacsi bilaabaan ama street food ha ahaato ama si kale ha ahaatee والله waxaan oran karaa horta wax kasta horta business Soomaalideena dhami wada business minds baynu nahay oo dad waxaynu lahay base code business ku yimi business ku fadhiya we very good at business waxaan oran karaa marka hooyo Soomaaliga anigu afar ciyaal ma leeyahay hooyo kaligeeda baan ahay maxay haydeen dad wasku taa ciyaalkayga gurigayga ubadkayga inanta kale la shaqaysa iyadu la mid marka ciyaalkeena dhiirigelin bay u tahay hooyadooda shaqaysanaysa way caawiyaan biyaha uskaga soo tuuraan sabarkii halkan bay cararaan marketkii baa bartay marka waxaan oran karaa anigu business ku cusubahay soo maaha waxaan oran karaa intii aan soo shaqaynayay dad u soo shaqaynayay waxa igala qiimo badan labada sano anigu shaqaystay ama hay soo gashay lacagtu ama aanay soo galin ama aan hela maanta ama aanan helin yani wax adiga ku gaara xor u tahay haddaad dhabar jabaysid adigu naftaada aad u dhabar jabto aan qof bil aadana aan guriga ka dhisanin aad guri dhiso marka waxaan oran lahaa Soomaalida ama dadka inaanaynu ku koobnaanin community-geena inaynu fursadaha kale dadkan kale inaga dambeeyayba ay ka faa'iideen la community badan oo imika naga dambeeyay baa jira oo waxyaabahan oo kale ka faa'iiday imika market-ko kale runtii hoos baynu u eegnaa waxaan dhahnaa maaha waxaas shaqo fiican laakiinse leyd kaama soo biyo ma bixinaysid leyd iyo gaas ma bixinaysid rentku qaali maaha yacni waa laboro waa shaqo adag laakiinse maxay haydeen markaas wax ku dhiirigelin lahaa waxay doontaba ahaatee haddaad business idea haysatid samee at least hadduu maca shaqayn waayo at least waad isku dayday waad tijaabisay waxaad rabtaa waxa waan tijaabiyey laakiinse yani maskaxdaadan ku jirin you have to action nasamaysid insha Allah action ka aad muhiim u ah okay kugu dheeraama acbaar meesha waa kugu hayay walaashay kule raashin Soomaaliyeed sameeyeen mustaqbalka ma rajeynay raashin kala duwan ku soo darto mase waxaad leedahay culture-kan ku dhaganaanayo aan dadka caalamka gadaa may wala igu yiraahdaa mad sandwich samaysid sandwich everywhere meel kasta ka heli kartaa dad sandwich tuna sandwich cheese sandwich dad doonaysid no maxay yahay cuntada Soomaaliga sameeynaya haddaan cunto kale ku darayo intaan anigu aqoon intaan aqaano baan ka sameeyay moofada iyo alaabta cajaayibka ayaa ku daraya haddaan cunto kale ku darayo yani dhaqankaygu ma sameeynaya ma doonayo inaan mix garayo wax kale because waxaan la heli karin weeyaan safaan aad weey laakiin meel kasta cunto croissant iyo sandwich iyo coffee wad ka helaysaa meesha waxa la iigu keenay bariis suqaar oo laba nooc chicken iyo maxaa la iyo hilib caadi hilib suqaar iyo chicken suqaar waa umalana iyo hilibkii weyna ma sha Allah soo karkara waa u jeedin waxaan ku cunaa meel barxad ah ma aan maqaayadihii gudaha indoorka Soomaalida loogu talagalay meesha adoo wadada iska socdo baahida waxaa soo leexana waxa ay iska cunaa kan yaan kiiloobin inta waxa ku jiro oo la diida inuu qaboobo maraqa ku jiro maraq Soomaali waa soo karkara oo jeedin ma geed qatar loo sameeyay soo u qaboobin dabcan mooskana kama maqno dadka ajnabiga waxay aad ugu amaanaan raashinka Soomaalida inuu moos ka maqnayn oo markasta moos ku jiro
intana waxaan u jeednaa basbaaskii inuu noo yaalo waa qadaynaynaa casriyiin waa noo dhiman yahay maanta intaa ku qoranahaane bismillaah waaw والله dhadhankiisa aad u fiican yahay اوكي اصحابي haddana waxaan soo gaaray casriyihii aan idin sheegay dabcan markaa qadaysid xataa inaad baxid muu baahnid xogaa iska baashaali kartaa marketka weliga iska soo wareegay waa soo noqonee kabacdi waa casriyeyne waayo maqaayad Soomaalida aad imaatay sambuusna aanan cunin alshan aad u kulul alshan wax aqli gala ma especially meesha marka imaato sambuuska hore laga dhameystaa waayo dad tiro badan oo ajnabi ah saf ugu jira sambuuskan kaliya waxaan kaloo ka maqnayn kuleeto shaaxi hiddi dhaqameedka kuleeto katal iyo waxyaabahaas la qabsateen inaad guryaha ku samaysteen qurba joog hadii leeyahay laakiin tarmuuskii saxda ahaa ee dhaqanka aan lahayn shaxnu wala keenay suuqan buuxsaday horta shaaxan meeshan waxaa u imaado waxa ugu horeeyay waxa kamid ahaa shaaxan tarmuuska lagu sameeyo dabcan caaniina waa kaas hadda cadeys rabto marka sokorta gooniya loo keenay oo dad sokorta necab ah jiro ama sokor qabo marka sokorta gooniya ugu shubanaa okay aniga sport saahay banooniga dhiilaa marka sokorta xogaa yar waa iskugu rooneeyaa cadeys yarna dhac igu sii war maanta meeshan waxaan ku dhaha martiqaadan dareemoyaa maba dareemoyo maxaa lahay casriyeyga waa jak sambuuska la dhaminaynaa bismillaah aad u kulliyaa sambuuska xilliga aan joogno haddeertaan waa winter oo qabow ah jaaqadaan wataa ujeedin sambuuskuna aad u kulliya عشان هو واحد جق اسكو شاحن دميننا وشاحي وقري صحدا هوا معانا محل اسم معانا ومعانا قانين والله wax laga sheekay kara malahan hadii aad u baahan tahay London aad joogto oo aad mutaqaana London Bridge iyo London Tower waxyaabahasna soo booqato arabto maqaayadana ku dar waxay ku taalaa wuriji ku taalaa iska imaada wax cuna wax caba gabadha hala support gareeyo kula raashin wax kasta ka heli kartiin oo raashin Soomaalida laga helo especially dumarka ilmaha kale meelahan way u fiican yihiin waayo maqaayadaha Soomaalida caadiga raga aad u buuxo maqaayadana raga wada buuxo dumarka meel yar loo xiraa laakiin meesha meel nafis ah waaye dumarka ilmaha iyo family way ku nafisi karaan waa sidii meel sida mataqaan meelaha horumarsan oo kale marka walaashan hal support gareey meeshan meel aad u qurxan waaye walaalo Shacib Roy aad iyo aad u mahadsan tahay inaad noo timi waqtiga dheer meel fog nooga soo tarashay noo timi sad noo support gareyso noo dhiiri geliso yacni wallahi ma koobi karayo dee إنسان كوجو محل علينا ما قرني لك سعاد بوم هتسنتهين سومالي دين ضد تعاوية أو إسو قلبي فران أو بينو نهاي مركا thank you so much إن هذه مع دولة لا ضد ما تسنتهاي ونكسر دوينا يا مروة يا مركز طبعا إن شاء الله ده مركا إن شاء الله anytime نوك علي وحي ضمبنا وكل سعودين هنا يوم مالها الضمبة ها سو حالكن وحويا إن وبيرفكت سكوير ويلج ماركت مركز ويلج تمادد ان هذا ديالار كا إليزابيث لاين كا وحبوا يسودوا لويهين ان والو شيء يا ذا ماركت ومين سكوير كا إن شاء الله جرينيتش نوحنا نتقنا خميس تيجي معها ان وجرينيتش إندور ماركت ان هل كان نوجو كاليا إن شاء الله ده يملك على بدن إلى إن شاء الله يا هي الصومالية هرمرتها هي مقعين هي موقن ملف قاعدة إن شاء الله thank you مقال كان مقال من تكون من دون وحين كي تجيا سلاسيو نبتقلي